بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حرّا إن أيدين سوق بيو إلها دقل المرفلة أصل كودي يمش أي دقة أي جيران أي ربط تاريخ إن إلى ذا إذن لو ذا إلها دقل المرفلة حال يجري أصل كودي مرك هراء حال يجري سب على يجري سب أمورة ذي سمع هذا دقل المرفلة ماشي لقى سوق قوي أصل كودي حال يجري سب أمورة ذي سمع أو دقل شيطمات أو دقل هالمدر كالمجة صفر ريون مرفلة ماتاي أو دقل درارة أو إرهالة. أنت سأل إجري عمر أو دقل وحالي هذا وقرها الله يقانا عمر أو دقل قرها الله يقانا. waxaa kaloo la yiraahdaa jiid waxaa loo yaqaanaa ali aw digil waxaa loo yaqaanaa jiida loo yaqaanaa jiida maanta waxaa loo yaqaanaa ali aw digil waxaa la jiray jiido ciise aw digil waxaa la yiraahdaa tunay baa la yiraahdaa asmaa aw digil duub dheere isagana waa qabiil oo ka tirsan digil laakiin aanu weligay ma arkin galadii bagadii shanta caleemood iyo dabara ayaa la socda beelaha kale ee mirafle waxaa loo yaqaanaa sagaal iyo sideed haddii aan sagaal aan ka bilaabo waxaa la yiraahdo laba eelqode waxaa loo yaqaanaa geeridle iyo jilible laba baroosile waxaa loo yaqaanaa luwaay iyo xadame labada qabiil aygan sidaas loo yaqaanaa laba dhaax waxaa loo yaqaanaa yantaar iyo hubeer saddex ganaane waxaa loo yaqaanaa gawaaweyn gasaare gude eyle waxay degaan gobolka gedo dadkii degi jiray asal ilaa doolow ilaa baar dheere ilaa luuq ganaane dadkii degaa waxaa la yiraahdaa saddex ganaane macnaheedu maxay tahay webiga ganaane asalkiisii meeshii dadkii deganaa waxaa la dhihi jiray saddex ganaane dadkaasaa loo yaqaanay hadda maanta waa qabiilo kale ayaa iska degay oo magacooda sheeganaya saddex ganaane beelahaasaa la jiray markaan ka baxo sagaal intaas ayay ku kooban tahay sideed markaan ku daro sideed waxaa loo yaqaanaa saddex boqol dambe waxaa loo yaqaanaa hariin elay heladi afar reer bay waxaa loo yaqaanaa macalin weyne reer dumaal garwaale jiroon afar boqol hore waxaa loo yaqaanaa imid qoomaal yalale idisow laba harqan waxaa loo yaqaanaa leysaan iyo haraw waxaa kaloo weheliya waanjaal iyo ashraaf intaas ayay ka kooban yihiin marka dadka asalkooda deganaa ama koonfurta Soomaaliya dadka lagu yaqaanay digil mirafla dadkaas ayay ahaayeen waa qabiilo tiradooda intaas gaaraysa asalkoodana waxaa la yiraahdaa sab intaan Soomaali gumaysi ka bixin ka hor adigu 1900 iyo 1800 iyo meelahaas marka dadka deegaankaas deganaa marka laga reebo baajuun oo jubbooyinka ilaa Kaasuma iyo Gooboyn dhulka marka deganaa oo Absawaaxili iyo kuwa ku hadli jiray maahe inta kale qabiiladan kale hadda maanta ku hardamaya awood sheeganaya ma joogi jirin taariikhda marka haddii dib loo baaro dadka gobolada tegay intaas ay ahaayeen